wafdi ka socda wasaaradda waxbarashada Soomaaliya iyo maamul goboleedyada ayaa kulan la qaatay mas'uuliyiinta xafiiska tacliinta xirfadaha farsamada iyo sayniska ee dowlad deegaanka Soomaalida. Wafdigan oo ujeedadiisu ahayd inay khibrad wadaag iyo qaab shaqeedka xafiisyada kala duwan ee deegaanka arkaan oo ka socday wasaaradda waxbarashada maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa soo dhaweyn kadib waxa ay khibrad isweydaarsi la yeesheen bahda xirfadaha farsamada iyo sayniska. Wafdigan ayaana faham guud laga siiyay 13 kuliyadood iyo wakaaladda xaqiijinta tayada xirfadlayaasha habshaqoodkooda oo hoostaga xafiiska tacliinta xirfadaha farsamada iyo sayniska ee dowlad deegaanka Soomaalida. Wafdiga ka socda Soomaaliya ayaa sidoo kale booqday kuliyadda caafimaadka Jigjiga iyo kuliyadda farsamada iyo xirfadaha sare ee Jigjiga Polytechnic. Wasiirka xafiiska tacliinta xirfadaha farsamada iyo sayniska ee dowlad deegaanka Soomaalida iyo agaasimaha xirfadaha iyo waxbarashada dadban ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay inay si wanaagsan ugu qabsoontay khibrad isweydaarsiga ay sameeyeen. Shalay iyo maantaba waxaa martin oo ahaa team wafdi ka socday wasaaradda waxbarashada ee federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada Soomaaliya qaarkood. Ujeedadooduna ay ahayd qaabkii ay waayo aragnimo ay uga heli lahaayeen sektorka waxbarashada iyo TVET-ka ee dowladda deegaanka Soomaalida. Shalay wasaaradda waxbarashada ay la joogeen, maantana annaga bahda xirfadaha farsamada iyo sayniska dowladda deegaanka Soomaalida bay marti u ahaayeen. saad ogeydeen basaakayto xafiiska waxaa loogu jeediyay presentation iyo soo jeedino ku saabsan sektorku sida uu shaqeeyo, shaqooyinka uu qabto, ahamiyadda uu leeyahay iyo siyaasadaha iyo istaraatiijiyada kala duwan ee la xiriirta sektorka. sidoo kale wakaaladda COC-da ama xaqiijinta tayadu qaabka ay u shaqeyso, taasoo ayagana gashi badan u noqonaysay oo ahayd waxa ay rabeen inay fahmaan TVET-ka maxaa looga dan leeyahay, ahamiyadda dhaqaalaha uu leeyahay, ahamiyadda u shaqo abuurka uu leeyahay iyo si guud siyaasadda lagu maamulo. kadibna waxaan wada booqanay kuliyadda caafimaadka ee Jigjiga oo ay soo arkeen ayana waaxyadeeda kala duwan iyo qaabka ay u shaqeyso. ugu dambeyntii hadda waxaan joognaa kuliyadda farsamada gacanta ee Jigjiga ayana ay soo booqdeen waxyaha kala duwan iyo workshopyada kala duwan ee kuliyadda. waxaan isleenahay gashi fiican bay u noqon kartaa qaabkii ay dib u dhis ugu samayn lahaayeen hay'adaha kala duwan ee dalkan dariska aan nahay Soomaaliya oo saad ogsoontihiin dagaalo sokeeye iyo colaade ay muddo badan aafeeyeen laakiin hadda ka soo kabanaya. marka inay naga dhigtaan qaabka waxbarashada sare iyo tacliinta iyo xirfadaha loo maamulo, loo dhiso, sidoo kale qaabka wada shaqeynta hay'adaha waxbarashada ee kala duwan iyo xafiisyada kala duwan ee qaabka wada shaqeeyaan. Anaga waxa noogu muhiimsan waxa weeyaan iskuulada farsamada ee dalkanaga ka jira kaliya waxa weeyaan waa training centers aan lahayn support production aan lahayn. waxaan aragnaa waxa kamid ah in iskuulku asagu iswadi karo oo qayb loo sameyn karo, wax soo saar loo sameyn karo oo lagu kabi karo xaruntii lafteedii ay noqonayso mushaaraadka macallimiinta iyo waxyaabaha la xiriiray maadaama wadankan resourcekiisu iska kooban yahay. si la mid ah waxyaabaha aan sida dhaqso maaragtay aan dhaqan gelin doono halkan aan ka baranay waxa kamid ah qaybta qiimeynta xirfadlayaasha oo runtii qaybta ugu muhiimsan ee u dhaxayso tababarka iyo maaragtay tababartaha iyo loo shaqeeyaha meesha u dhaxaysa oo cidda shahaadada bixinayso oo qiimeynta sameynaysa oo aan isleenahay waa waxyaabaha ugu waaweyn ee idinka maqan maadaama labadu dhinacba isbalance gareynayaan cidda trainingka sameynayso iyo cidda loo shaqeynayo cid u dhaxayso oo qiimeynta sameeyso imtixaanaadkaas qaado.